السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودو شاليت والله waxaan soo galiyay video aan kaga hadlayay in xukuumadda ay rabto inay celiso dadka Dublinka ah kadib markii midowga Yurub ay wax ka bedel ku sameeyeen arrimaha qaxootiga oo dadka Dublinka in sida dhaqso badan loo celiyo. Videogaas markaan soo gudbiyay kadib waxaa soo baxay dhalinyaro badan oo commentiga iyo luuqay ugu soo qorayay su'aalo dhowr ah oo ku qaar ay ku leeyihiin aniga wadan hibelan ka imaaday oo faraheyga waa leega cafiyay ma ku jira dad waxay ku leeyihiin aniga sanad iyo baran jooga ma ku jira fiiri warkayga dhageyso horta Dublinka hadii lagugu cafiyay oo warqad cafis ku soo dhacday dhamaatay hadii sharci lagu siiyay dhamaatay okay laakiin dadka aan ka hadlayo waxay tahay dadka hadda Dublinka ku jiro dadka hadda 6 bilood ugu horeysay Dublinka ku dhex jiro waay dadka laga hadlayo mise dadka loo kordhiyay Dublinka dadka qaar waa loo kordhiyaa dadka qaarna looma kordhiyo sida normaalka waqtiga Dublinka waa 6 bilood 6 bilood gudaheeda dawladdu waa inay qasab kugu qaadaa hadii ku qaadi weysana waa inay ku kordhisaa marka dadka qaar waa loo kordhiyaa dadka qaarna looma kordhiyo 6 bilood markay ka dhamaato kadib waxa loo soo diraa interviewga caadiga saasay ku maraan oo sharci ama diidmo wixii la siiyo nasiibkiisa laakiin Dublinka anaga aan ka hadlaynay shalay toole oo gabadha hadda la celin rabo Soomaalida ah waxa way Dublinkeeda way cusub tahay bishii saddexaad ay soo gashay okay faraaq soo baxeen oo Talyaaniga xaq u yeeshay in Talyaaniga lagu celiyo ayay xukuumadda ku adkeysanaysaa marka dadka laga hadlayo waa dadkaasi ma ahan qofka cafiska la siiyay iyo qofka sharciga la siiyay kuma jiro aad u maasantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh